السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ka sheekeynaysan dhaqamadii iyo akhlaaqda ay leeyihiin reer galbeedka reer Yurub waxaase iloodeen inaad ka sheekeysaan dhaqamadiina iyo akhlaaqdiina islaamka ah sidoo kale gabadha xijaabneed oo xijaabka sidanin waxay ka xushmad iyo ka go'aan qaadasho fiican tahay gabadha xijaaban oo xijaabka sidata inta badanna gabdhaha xijaaban asal ahaanba kuma qanacsan xirashada xijaabka kaliya waxay u xirtaan in xijaabka lagu qasbay mise uu yahay caado ama dhaqan ay ka dhaxleen hooyooyinkooda qoraahdani waa faalo ay bixisay saxafiyad Mareykan ah oo asal ahaan ka soo jeeda Carabta waana saxafiyad muslimad ah iyadoo hadalkeeda si dhameystiraysa ayaa waxay tiri aniga ka ani ahaan ka shakhsi ahaan ka saxafiyad ahaan waan ku qanacsanahay xirashada xijaabka laakiin ma awoodo inaan xirto waxaan u baahanahay dhaqaatiir nafsi ah oo nagu qanacsiisa mise naga dhaadhicisa xirashada xijaabka saxafiyadani waxay naga dalbatay inaan u keeno dhaqaatiir ku takhasustay cilmu nafsi si ay ugu qanacsiyaan ama uga dhaadhiciyaan xirashada xijaabka waxay naga dalbatay inaan u keeno dhaqaatiir ku takhasustay cilmu nafsi si ay ugu qanacsiyaan gabdhaha xijaaban iyo kuwa aan xijaabneenba inay xijaabka ku xirtaan qanaaco iyagoo qanacsan inay xirtaan مثلا aniga ka Umar ahaan waxaan jeclahay salaada waana ku qanacsanahay laakiin waxaan ahay qof ka caajisan tukashadeeda sabab maxaan uga caajisay ma taqaana kaliya waxaan u baahanahay dhaqaatiir nafsi ah oo iga dhaadhiciya inaan iska daayo caajiska iga saaran salaada xogaar baldhadhami hadalka ma socon kara aqli galmi yahay qorahda aan ka maqalnay saxafiyadani wax yar ka hor waxay nagu qaadaysaa oo nagu kalifaysaa inaan iska dayno mowduuca xijaabka oo aan diiradda saarno mowduuc ka muhiimsan xijaabka oo ah maxay ka dhigan tahay inaad noqotid qof muslim ah maxay ka micno tahay inaad tahay qof muslim ah inaad muslim tahay waxay ka dhigan tahay waa inaad qirtaa in ilaahi dadka abuuray kaliya xaq lagu caabudo nabi muxammedna uu yahay rasuulka alle iyo inaadan hawadaada iyo shaydaanka baraacin aadna dhaqan gelisaa cibaado waliba uu ilaahay ku amray sida xirashada xijaabka waa cibaado uu ilaahay amray gabar waliba oo muslimad ah haddii aad adiga ka caajisan tahay xijaabka iyadoo ay sabab u tahay raacid aad raacaysid hawadaada iyo shaydaanka oo dhagaha kaaga sheegayo waxaad u baahan tahay dhaqtar nafsi ah si uu kaaga dhaadhiciyo xijaabka si wacan ii maqal marbu adiga uma baahnid dhaqtar nafsi ah si uu kaaga dhaadhiciyo mise kugu qanacsiyo xijaabka kaliya waxaad u baahan tahay inaad fahantid maxaa lagu abuuray maxaa adiga lagu abuuray maxaad u tahay gabar muslimad ah inaad fahantid inaad adiga xijaabka ka caajisan tahay oo aad hawadaada raacaysid iyo inaad fahantid sababta qofka muslimka ku kaliftay inuu kaco xiliga fajirka una ku meyrto kuna weysa qaato biyo qabo si uu salaada u tukado sababta ku kaliftay midka fajirka kacayo inuu kaca waa inuu ilaahay raali geliyo jannadana uu galo adigana marwo si aad ilaahay u raali gelisid jannadana u gashid uma baahnid dhaqtar nafsi ah oo ka dhaadhiciya xirashada xijaabka kaliya waxaad u baahan tahay inaad fahantid micnaha lagu abuuray iyo micnaha janno iyo naar loo abuuray kadib insha Allah adigoo qanacsan ayaad xiran doontaa waxaan filayaa inaad fahantay maqsuudkayga ama maqsuudka aan orahdan dheer kugu soo sheegay haddaan u soo laabano fikradda ah in gabadha aan xijaabnayn ay ka xushmad fiican tahay gabadha xijaaban aan ku bilowno kelmadda xushmad mise xishmad asal ahaan qeexideedu waxay ku xidhan tahay bulsho waliba waxay ka aaminsan tahay micnaha xushmadda مثلا hindiga xushmad waxay u yaqaaniin u aaminsan yihiin inay gabadhu xirato saariga hindiga oo gabadha buufkeeda aan dabooleynin oo banaanka keenayo Mareykan xushmad waxay u yaqaaniin inay gabadhu xirato goonooyinka gaagaaban iyo wixii la mid ah carabtan dambe oo reer galbeedku rogay yacni akhlaaqooda bedelay xushmad waxay u yaqaaniin inay gabadhu xidhato bintaal yacni surwaal sidoo kale aynan timaheeda daboolin oo ay timaheeda soo muujiso Soomaali maxay xushmad u yaqaaniin oo soo laabanayna waxay u yaqaaniin markaad tiraadid gabadha aan xijaabnayn waxay ka xushmad iyo ixtiraam fiican tahay gabadha xijaaban ma xuma laakiin kaliya waxaad ka hadashay ra'yigaaga iyo sida aad adiga u aaminsan tahay inay xushmad u tahay yacni waa qeexidaada oo xushmad u taqaanin saa'adii u taqaanida ka hadashay qaar ka mid ah kaymaha Afrika qabaa'isha qaar ma xirtaan wax dhar ah rag iyo dumarba way wada qaaban yihiin arintaas ma waxay ka dhigan tahay inay yihiin dad xushmadaysan dad sharfan maya kama dhigna iyadoo laga shidaal qaadanayo arintan ayaa waxaa imaaday hadal ah xijaabku daliil ama cadeen uma ahan akhlaaqdeeda xijaabku daliil uma ahan xushmadeeda iyo sharafteeda الملابس ليس لها وظيفة أخلاقية الملابس لا تعبر عن أخلاقي hadalkani waa hadalka ay bulshadu ku dhex buufinayaan dadka u ololeynaya taxriirul mar'a sidoo kale fahankan qaloocan dartiis qaar ka mid ah fanaaniinta waxay aaminsan yihiin in muujinta mafaatinteeda iyo xubnaheeda marka ay heesayso lagu cabiri karin akhlaaqdeeda fanaaniintaasi waxay ku leeyihiin waxani waa shaqo iyo bandhig faneed aan ku soo bandhigayo mihnadeyda iyo xirfadeyda fanaannimo
haddii aad horay u maqashay qisadii nebi aadam iyo xaaba calayhim assalaam marka ugu horraysay oo ay ilaahay ku caasiyeen waxaa ciqaab looga dhigay in ilaahay uu ka siibay dharkooda yacni waxaa laga tegsiiyey xushmadii isla markiiba waxay bilaabeen inay cawradooda ku asturaan caleemaha jannada. haddii aad aaminsan tahay in xijaabku daliil uunan u ahayn xushmadaada iyo akhlaaqdaada, waxaan ku weydiinayaa waalidiintaada aadam iyo xaabo marka dharka laga siibay isla markiiba maxay u asturaan cawradooda? ama isweydii sababta ay gabdhaha xijaaban u difaacayaan xijaabkooda iyadoo aan lagu qasbin, keliya waxay dhaqangelinayaan awaamirta Alle, rajadooduna waa inay jannada galaan. mid ka mid ah maamulayaasha jaamacad ku taalay dalka Hindiya ayaa wuxuu soo baxay si uu ilbaabka uga xirto gabar waliba oo xijaaban, laakiin gabdhahaasi xijaabnaa waxay difaaceen xijaabkooda iyo xushmadooda heer lala dagaalamay, laguna xadgudbay, lana dandareystay. adiguna marwo waxaad u baahan tahay dhakhtar nafsi ah si uu kugu qanciyo sideed u noqotaa gabar muslimad ah iyo inuu kaa dhaadhiciyo xidhashada xijaabka. isweydii intee farqi ayaa idin dhexeeya adig iyo gabdhahaasi difaacay xijaabkooda iyo xushmadooduba? xijaabku waa waajib ka ahaaday xagga Allah kana soo degay xagga Rabbi, lagana rabo gabar waliba oo muslimad ah. xijaabku waa waxa ay bulshadu u baahan tahay. xijaabku waa xushmad, xijaabku waa ixtiraam. qoraa Ingiriis ah oo la yiraahdo Rose Maria ayaa waxay tiri gabadha muslimada ah waa gabadh ka cizaysan kana sharfan gabadha reer galbeedka, gabadha Yurubiyaanka ah. dhammaan dhinacyada nolosha way uga sharfan tahay, laakiin maanta gabadha muslimada ah waxay ku qiyaanan tahay dhaldhalaalka ilbaxnimada reer galbeedka ee beenta ah. waxaan dhihi karnaa sharaf iyo karaamo, xitaa xushmad waa midda ay ku qiraan cadowgaaga. fadhi odayeedka Faransiiska gabdhuhu wuxuu ogol yahay inay galmo samayn karaan markay gaaraan da'da 13, laakiin uma ogola gabdhaha inay xijaab ku xirtaan da'da 13 markay gaaraan. sababna wuxuu uga dhigay way da'yar yihiin. galmadu way karaan laakiin xijaabku ma karaan, way da'yar yihiin. haddii aad si fiican u fiirisid waxaad fahmaysaa in reer galbeedku isku dayayo inuu inaga noogu daysado mabaadi'deena iyo akhlaaqdeena. maalan dalka Jabaan wuxuu soo saaray qaanuun diidaya in la guursado gabadha la soo furay ilaa marka ay u go'do muddo 100 maalin laga bilaabo maalintii isageeda soo kala tageen, iyadoo la diidayo in nasiibyadu isku darsamaan. waa halka diintan islaamka ay ka dhigtay ciddada ay tirsanaysa gabadha muslimada ah ee la soo furay. ma xasuusataa nuqdadii ahayd Soomaali maxay xushmad u taqaanaa oo aan dhahin waan u soo laabaneynaa? ani waxaan dhihi karaa Soomaali waxay xushmad u taqaanaa xijaabka mise gabadha xijaaban. waxaan ula jeedaa xijaabka dhammaystiran ee buuxinaya dhammaan shuruudaha xijaabka eena asturaya jirka gabadha xiran xijaabkaasi. Soomaalidu sidaas ayay sharaf iyo xushmad intuba u taqaanaa. waxaan fariin dardaaran muuqaalkan ugu dirayaa gabdhaha Soomaaliya, waliba gabdhaha hadeer soo baxaya oo soo qaangaaraya. gabdhow iska jira inaad ku daysataan gabdhaha dibadda dalka u safray ee TikTok muuqaalada soo geliya oo soo niikiya oo qaaban ahna shaqaale la shaqeey Ibliis iyo xulufadiisa. gabdhahaasi qaabani waa kuwa haleeyay baabi'iyayna gabdhaheena Soomaaliya ee toosanaa. waa anigoo ah Cumar Maxamed, halkanina waa kanaalka Garwaaqsi. haddii aad isleedahay kanaalkan Garwaaqsi wax un baad ka faa'iidi, ku soo biir kanaalka, subscribe saar, siina faafi kanaalka. wixii talo iyo tusaale ahna kumantiga noogu reeb. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.